اسطنبول عريقة ودنكاني تركيا waxaa si rasmi uga furmay shirka dalxiiska caalamka oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 200 dal. dalka Soomaaliya waxaa shirkan u matalayay wafdi uu hogaaminayo kusimaha wasiiru dawlaha wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska Maxamuud Cabdi Xasan Beekos. waxaana shirkani maanta daafuray ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga bin Ali Yildirim isagoona shirka ku soo dhaweeyay dalalka ka qayb galaya shirkani. kusimaha wasiiru dawlaha wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dawladda federaaliga Soomaaliya mudane Beekos ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay shirkani. anaga Soomaaliyahan waxaan ka faa'iideysanay arrimo badan dadkii aan la kulanay iyo arrimihii meesha laga sheegay waxaan xoog saarnaa kaliya dalxiiska dawladda maaha waxaan xoog saarnaa dalxiiska gudaha oo dhalinyaradii ku kortay dalka aan gobol aan arag inay maanta magaalooyinka u safraan xamar yimaadaan oo ay isbartaan iyadoo afteeda waa dalxiiska gudaha markaan saarnaa insha Allah amaankii waa jira dalxiiska waa laga hadlayaa caafimaadka waa laga hadlayaa waxbarashada waa laga hadlayaa dhaqaalaha waa laga hadlayaa waxay ka mid tahay sectors kala rabo Soomaaliya inay horumariyaan dalxiiska wuxuu ka mid yahay adduunyada maanta in la yiraahdo maxaa ku yiraahdaa caalamku u socdo oo alla xuduud uusan lahayn anaga waxaan leenahay bad weyn waxaan leenahay hawo aad u macaan oo caalamkan aan kaga duwanahay marka arrimahaas waxay noo tahay faa'iidooyin waaweyn oo halkaan aan ka helnay madax kala gedisan ayaa goobta hadal ka jeediyay waxaana goobta uu shirkan uu ka dhacay ka soconaya shirar gargaar ah oo yeelanayaan wufuudda dawladaha caalamka ee shirkani u matalaya xoosh Jibriil waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada shirkani lagu marti qaaday marka waxyaalaha ugu waaweyn hadda laga hadlayo meeshan waxa ka mid ah inagu aan daras galeynayno xawaasidii loo celin lahaa dhalinyaro fara badan oo tahriib ku jirta ujeedka Soomaaliya shirkani loogu marti qaaday ayaa waxa lagu sifeeyay isbeddelka dalka ka jira dhinacyada nabadda iyo waliba isbeddelka nolosha iyo waliba sidii dalxiisayaashu ay u tagi lahaayeen dalka Soomaaliya sida uu TV-ga Universal u sheegay madaxa ganacsiga safaaradda Soomaaliya ee dalkani Turkiga Yusuf Jago in maalgashiyaasha naftirkooda ay maalgashi dhab ay ku sameystaan dhamaan qaybaha kala duwan maadaama hoteello waaweyn aan leenahay hoteelladii waaweynaa oo muddo 26 sano 25 sano ku dhawaad ay burbursanaayeen in dib u casriyeyn dib lagu sameeyo sidaas darteed marka dhamaan shirku wuxuu ku soo dhamaaday waqtigan aan kula hadlay guul marka Soomaaliyeena ahmiyadu u lahaa waxay ahayd in dalxiisayaasha caalamka ay yimaadeen Soomaaliya labada cisho ee soo socota shirkani waa uu socon doonaa waana shirkii labaad ee dalxiiska looga hadlayo lagu qabto gudaha dalkani Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul. Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.